gudida qandaraasyada qaranka ayaa kulankii ugu horeeyay kula yeelatay magaalada Hargeysa shirkadaha u tartamaya dayactirka madaarada Hargeysa iyo Berbera. kulankan oo lagu qabtay hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay shirkado wadani ah iyo kuwa ajnabi ah. waxaana furitaankii shirkaasi ka soo qayb galo kale wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka, wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka oo halkaasi ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada kulankan ay la xidhiidho shaacin laba qandaraas oo loo kala doonayo madaarada Berbera iyo Hargeysa. waxaanu intaasi ku daray in shirkad walba ay u furan tahay inay soo bandhigaan qaabka iyo habka ay u doonayaan inay kaga qayb qaataan qandaraaskaasi. wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka mudane Ismaaciil Muumin Aare ayaa isaguna tilmaamay sida ay ugu faraxsan yahay ka soo qaybgalkan ay shirkadaha ajnabiga ah iyo kuwa wadaniga ah ay ka soo qayb galeen tartankan la doonayo in qandaraas loogu bixiyo madaarada Berbera iyo Hargeysa. waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan xukuumadahan shirkadaha ajnabiga ah ka qayb qaadanaya qandaraaskan. waxaanu intaasi ku daray inay rajaynayo in ay fulin doonaan shaqo wanaagsan. waxaanu ka waramay wasiirku in Somaliland ay u baahan tahay dibudhis ballaaran oo lagu sameeyo dhinacyada wadooyinka, dibudhiska hay'adaha dawladda iyo guud ahaan baahiyaha asaasiga ah. wasiirku waxa uu sheegay in kasta oo dhaqaale ballaaran aanay Somaliland haysan oo arrimahaasi ay ku guda gasho, haddana waxa uu sheegay in xukuumadda cusub ay ka go'an tahay in inta awoodooda ah ay wax ka qabato arrimahaasi baahiyaha asaasiga ah ee bulshadu ay u baahan tahay. wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa isaguna sheegay in uu uga mahad celinayo shirkadaha ka soo qayb galay kulankan. waxaanu ka waramay in mashruucan dibudhiska madaarada ay maalgelisay dalka Kuwait, sidaasi daraadeedna uu uga mahad celinayo dalka Kuwait gaar ahaan amiirka dalkaasi Kuwait. wasiirku waxa uu sheegay in mashruucan ay u hayaan lacag gaaraysa $10 bilyan kaasi oo la doonayo in wax laga qabto dibudhis iyo habeyn lagu sameeyo madaarada Berbera iyo Hargeysa. waxaanu sheegay in halkan ay ku soo bandhigayaan qaybta hore ee la doonayo in laga dhiso madaarka Hargeysa oo la doonayo wada gaaraysa 2 kiiloomitir iyo badh in lagu bilaabo oo laga dhiso. wasiirka duulista iyo hawada waxa uu tilmaamay in ay farxad weyn u tahay in ay kala soo qayb galaan shirkadaha ajnabiga ah gaar ahaan kuwa gobolka. waxaanu sheegay in dawladda Somaliland ay ka go'an tahay dibudhiska dalka iyo sidoo kale horumarintiisaba. wasiirku waxa uu si qoto dheer uga sheekay madaxbanaanida Somaliland ee 1960 ka qaadatay Ingiriiska iyo intii ka dambeysay taariikhdii iyo marxaladii kala duwan ay soo martay tan iyo laga soo gaarayo 1998 May oo mar kale Somaliland ay dib u soo noqotay madaxbanaanideeda. waxaanu wasiirku xusay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan, dimuqraadiya, xukuumadda haatan jirtaana ay tahay mid lagu soo doortay codka shacabka. sidaasi daraadeedna wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqay in geed dheer iyo mid gaabanba ay u fuli doonaan sidii ay waddankan u gaarsiin lahaayeen horumar, baahiyaha asaasigaana ay wax uga qaban lahaayeen. wasaaradda duulista iyo gaadiidka cirka ee Somaliland ayaa tan iyo intii ay jirtay xukuumaddan cusub waxay ka mid ahayd wasaaradaha sida aadka ah waxqabadka muuqday u muujiyay ee dadaalka iyo firfircoonida badan ay ku jirto.